waxbaan xasuuqnay iyo adeeradood baan dharbaaxa ku dhufanay maalmahan aan ka maqlayay يعني inay tahay xilligii Puntland ay qaadan lahayd roolkeedii caamka ahaa oo lagu yaqaanay oo Soomaalinimada ahaa oo ahayd in dadka Soomaaliyeed laga difaaco dhibaatooyinka nooca kan oo kala Puntland waxa saaran xilku kama saara sool iyo sanaag iyo cayn kaliya dadka walaalaha ah oo sanaaga shishe ay ku xasuuqayaan Muuse Biixi iyo jabhadiisu ay ku xasuuqayaan oo ceelaf weyn iyo deegaanada u dhow ah waxaan u fidinaynaa gacan walaalnimo waxaan noo muuqata ilaa laga celiyo oo ummadda laga qabto xukuumadda Muuse Biixi oo bahalka ah inaysan dadka deynaynin inaysan tixgelinaynin shacbiga inaysan kala jeclayn dhiiga shacabka ama ha ahaado reer Soomaaliland ama reer Puntland ama Soomaalida kale ha ahaado xilligan waxaan leenahay oo ugu baaqaynaa walaalaha halka ku dhibaataysan Puntland garabkiinay taagan tahay sida ay sool iyo sanaaga Puntland iyo cayn u garab taagan tahay oo dhulkeeda iyada ah iyo bari iyo nugaal iyo mudug ay u garab taagan tahay shacabkeeda idinkana idin garab taagan tahay waana idin fidinaynaa gacan hadii aad nooga baahantiin baan leenahay waxaan kale oo ku darsanayaa hadalka waa ku dheeraaday Puntland waa meel laga tixgeliyo dhaqanka iyo sooyaalka Soomaaliyeed waa meel soo jireenka iyo dhaqanku sharaf iyo maamuus ka leeyahay dadka ay ihaanaynayaan oo ay xabsiyada u taxaabayaan oo salaadiinta iyo boqorada ah runtii waxaan leenahay Puntland waa idin soo dhaweynaysaa hadii aad u adkaysan weydaan ka soo tago garow imaadaan leenahay waa idin ku soo dhaweynaynaa waa idin sharfaynaa filooyin iyo hoteelaan idin dejinaynaa xukunkaas maxruuq ah ka soo carar hadii aad u adkaysan weydaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ku qaabilay magaalada Garowe wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitchen arrimihii ka wada hadleen waxa ku jiray xiisada deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool doorashooyin ku soo foolay meelo kamid ah dalka iyo amniga guud ee qodobo kale dabeetana waxay wadajir ugu qabteen shir jaraa'id waxa joogay wariye Axmed Awil Jaamac oo warbixinta nooga soo diray kulankan waxaa labada dhinac diiradda ay ku saareen arrimaha Soomaaliya xiisada u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Sool gaar ahaan Tukarraq shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen ma jirin wax su'aal ah oo warbaahinta loo ogolaaday in ay mas'uuliyiinta ay weydiiyaan hase yeeshee madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira xaaladda Soomaaliya iyo Puntland waxaan ka wada hadalnay geed socodka nabadda Soomaaliyeed waxaan ka wada hadalnay arrimaha nabadgelyada iyo amniga dalka waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo horumarinta iyo sida Soomaaliya hore u socon lahayd iyo arrimo runtii muhiim u ah waxaan ka hadalnay ma jiraan runtii dabcan waxa weeye shaqada caadiga ahayd dalka meelo badan oo kamid ah ku tagtagayay anaga wanaag bayno ahayd waxaan marnay markii u dambeysay waxa ka soo wartay 6 bilood oo yimaado marka wixii isbedelay dalka ka dhacay baa ugu muhiimsanaa iyo muhiimadda ay leedahay federalismka iyo dastuurka iyo constitutionka wax walba kullu waa ka wada hadalay marka gulbano ahayd hadalkayguna runtii wuxuu ahaa mid ku dhacay jawi wanaagsan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo la rumaysan yahay in safarkiisu uu ku qotomay xiisada ka taagan Tukarraq ayaa tilmaamay in ay Puntland isla lafagureen adkeynta nabadgelyada gobolka iyo sidii xasiloonida loo ilaalin lahaa aad ayaan ugu faraxsanahay in heshiiska gaalkacyo ay dadka shacabka ahina ay aad uga faa'iideysteen warwar ayaan ka qabaa xiisada Puntland iyo Somaliland ee Tukarraq waanu ka wada xaajoonay waliba waxaanu ka wada hadalnay xasiloonida guud ahaan dalka iyo waliba Puntland Michael Keaton ayaa xusay in ay Puntland qayb muhiim ah ay ka tahay Soomaaliya isla markaasna ay isla soo qaadeen xaaladda guud ee mandaqada doorashooyinka 2020 iyo shirka madaxda maamul goboleedyada uga furmi doona magaalada Baydhabo as well as the upcoming political processes including the preparations for the waxaanu kale oo aanu ka wada xaajoonay geed socodka siyaasadda oo ay ka mid tahay doorashada guud ee dhacaysa 2020 iyo doorashada ka dhacaysa Puntland waxaan ka mahadnaqayaa wada hadaladan midhaha leh aad ayaan u soo dhaweynayaa mar walba iyadoo ay jirto xaalad amni qaabka ay nabadda ugu dadaasho Puntland qaramada midoobeyna diyaar ayay u tahay inay Puntland kala shaqeyso ahmiyadeeda taakulaynta ummadda Soomaaliyeed
waxaa la ogyahay Puntland in badan in ummadda Soomaaliyeed ay hooyo u ahayd oo ay ku soo mooday dadka Soomaaliyeed ku soo mooday dhibaatooyinkii badnaa oo soo wajahay meel martigelisay oo ay kaga baxeen inay ahayd waxaan rabaa inaan iraahdo ugu horeyntii Puntland waxa xil ka saaran yahay marka koobaad dadka aynu ka sheekaynayno oo gobolada Sool ama Sanaag ama Cayn waa dadkii Puntland shacabkii Puntland way xil gooniya ka saaran Puntland way tahay inay Puntland ka faa'iideysato kacdoonka dadka laakiinse dadka iyo dawladda labaduba waa Puntland waana dadka iyo maamulkuba dalkoodii iyo sharafkoodii iyo cirdigoodii bay difaacayaan waana arrin sax laakiin waxaan rabaa inaan intaa ku darsado Puntland horta ugu horeyntii waxaa ka go'an inay dhulkeeda difaacato kan maqana soo ceshato waana hadda runtii arrin dream ah ma waa arrin taagan dagaalka ay Puntland maanta ku jirto waa mid ay ku soo ceshanayso xuduudihii rasmiga ah oo ay Puntland lahayd insha Allah maalmo kooban baana arrintaas qaadan doonta sida ay muuqata waayo xilligii wada hadalku uu dhamaaday xilligii istixgelintu waa dhamaatay walaalheen wax walba waa soo dhaafeen xilligii ummadda ay gacantooda ku jiraan laga xoreyn lahaa kuwa kale oo hadda ay duulaanka ku soo ahayna laga difaaci lahaa la jooga waxaan kala rabaa inaan xusuusiyo dadka maadaama Puntland ay tahay hooyadii Soomaaliya maadaama Puntland ay ku taariikhaysan tahay oo taariikhda Soomaaliya ilaa laga soo bilaabo SYL iyo maanta inta ka dhaxaysa dhaqdhaqaaq kasta oo Soomaaliya ka jiray oo gumaysi la dirir ahaa oo midnimada ilaalinta midnimada Soomaaliyeed ahaa oo soo celinta iyo xoreynta dalka iyo ciidda Soomaaliyeed ahaa oo ku suntanaa Puntland oo ay hormuud u ahaayeen xubno Puntland ka soo jeeda oo had iyo jeer ahaa dareenka shacabka reer Puntland waxay kale oo garowsatay in ay tahay xilligii nimankan Hargeysa oo runtii xukun maleeshiyaada xukun aan madani ahayn oo aan lahayn dareenka mataqaana wax garadka ah aan lahayn jabhadnimo ah oo bahalnimo ah oo runtii aad u taariikh xun inkastoo ay ku faanaan oo ay faan u arkaan yani waxbaan halignay iyo waxbaan laynay iyo waxbaan xasuuqnay iyo adeeradood baan darbaaxa ku dhufanay maalmahan aan ka maqlayay yani inay tahay xilligii Puntland ay qaadan lahayd roolkeedii caamka ah oo lagu yaqaanay oo Soomaalinimada ah oo ahayd in dadka Soomaaliyeed laga difaaco dhibaatooyinka nooca kan oo kala Puntland waxa saaran xilku kama saara